dhagaxya dab leeskuma dhifte kala dhowraay wax sidaa ka dhigan dhaqanka galmuduge iska dhowraay waryaa dhaqankeenna wax ka sheegin dhur iyo dhaqan babeele war habaar iguma kartid horta dhaqanka qurxi mugaska kadib habaarkaagu socahaahe war ma dhowdhowdaasun baa ku jiraysaan maxaa dhowdhowdayna kuugu jira nownowdaadaan dhegensannaahe dhulii abuur wal iska dhejiya dheefa ka dhaladaasa reer galmudugow sidun unis dhaama war 4 sano galmudug loogu tirgalay inuu madaxweynaha dhamaysto madaxweynihii saddexaad maanta la doortay eebaago afaraadna haddaanu soo fooriha xaatiriheenhe waryaa doorashada maanta cadaada ka dhacday waa lala dhuuntay anigayna ahayd inay xildhibaanadu i doortaanoo mar hore aysi soo sharax midda saxdaana bishaan gudaheedaan gurceel ku qabanayna laga soo qayb galo maysiin lahaayeen lan usuba nafaqeen baahano malmalaatin oo la siifadaa halay doorta inta kale war arrinta galmudug waxay ka dhigan tahay adigoo dhagax joogoon dhibic haysan biyaa geedihii dhar lahayn oo dhulka siiga ka duushay mid kaloo dhagax joogoo dhaliya kuugu xigaana in la dhaansada diiday oo ceelashii dhabab saaray bal muxuu dheefahayaa ma halaysla dhintaa muxuu guri baay degay ununkuna waxaan horu dhahnay oo ay ka dhigan taha maanta dhawaaqa idinka soo yeeraaya dhagonlow dhaniin beel isha dhagax lagaa saar oo dhabbahaaga cowskoyo dhooman mire lagaa qaad ar uniina geega may reer dhibaata dhaha fadhiinad waxaan maqli jiray hadda ka hor nin alla caasi ah wuxuu yidhi waxba dhowrsan maynay rabbow dhagaxya soo daadi walaa dhagahaga la kahelaayo goomuluudahaayeen nin yow warnimada warka iska daaye maanta waxaan maqlay in cadaado lagu doortay axmed baasto madaxweynaha loo doortaana la yidhi marka xaaf xagow aaday yaa minii baasta la doorta bariis iyo diirxaal lagu nacay war ninka baasta la yidhaa ee hadda la doortay ma jimca baastaallaydii ayuu dhashay maya sabdi cambuulaaleeyow dhashay warnimayo cadaado war aadnan ka hayn baan anuu ka hayaa wadaad layidhaha shiikh buukaxa hadda ka hor wuxuu ku riyooday cadaada haddii lagu doorto madaxweyne aan reegaalkacyood ahayn dhibaataa ka dhacaysa dhulku inuu la gariirayna ka baqaya war dhulku inuu la gariiro ka biqi maayaane inay isdoortaan bay ka cabsanayaan aryaadhaha waxa wadaadku ku riyoodayow yidhi waa la laalayo beeshaan xaqayra lagama hadli karo waa heer dhuusa mareebeed ee cadaadayaan la nabin war adiguna cabdulow dadaan xaq lahayn baad xaq u raadisaaye qoladaad sheegayso xaqoodii wadaaddaa u hayo sanad kasta mid baa u soo baxa warniyo wadaadada soo reer tawasul maaha xaggay uga hadhayaan halakoole ha kula jirto oo ha kugu taagnaato adaa ka her lagaa waaye warnimayo khudbasiro lama rabee inta naga daysaan madaxweynaha maanta shaashka cadaada loogu saaray madaxweynihii sharciga ahaa oo galmudug axmed ducaale geellaxaaf tuutu gashadaa la yidhi ooqayay xaaba quruxa mugow tuutaha gashada war geellahaaf runtiis way intii guulguulla ka horeebta gentaalama ka horeebaso larayno tuuta galada hagaan leeye war waa been boode dagaal uma socda ninkaas war haddaa miyuu qalaab tegaya war hagafinine gaalkacay uu ka baxay madaxweynuhu garow ka degay adeer madaxweynaha sharciga ah waa midka nabad iyo nolol wadato war garow waxaa tegey waa madaxweynayaashii maamul goboleedyada shirkii ay ku ballameen aana ka furmaya meesha waare ma ahan inta kalena waa iskugu tegayaan waxaana laga filayaa inay ka soo baxaan go'aanno ay mar kale dawladda xiriirka ugu jarayaan ayaguna ay lugaha iskaga jarayaan marka niman yahow madaxaa la iska wada jarayaa bilaashaad meesha u fadhiisiine array ninka madax ku yaal madaxa ha laga jara ma ewalaa madax nugu yiil warnimayo horta waxbaan ba hilmaamaye madaxda geedland maxay uga hadli weysa 14 oktoobar oo shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqay soobe war madaxda Soomaalida awalan cambaareen ma ahan wax kale laga sugayn ayadina waa ka mashquuleen anigu cambaareynta nafteeraan ba cambaareeyaha ka warrama adiguna adaa cambaar leh ka waranay war garow waa lagu shiraa aad leedihiin ciidan gadoodsanad qabsaday madaxtooyada Cabduligaas waxa ku shirayaaba soo madax gadoodsan maan ma gadood wax u dhiba ayaanta orax kula ilaa jiro garoor qabooba ilmuhu waa u baahan yihiin waraada Cabdulow hadda ilmaha garoorta waa ka cabeysaaye yaa ka damina waraysal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu yiraahday ciidan gadoodsan ayaa idili rabay anigana buusha bayaan iskaga badbaadiyay buu yiraahday aryaa ma buunsha ciidan celi karta runta leesuba sheego warnimaya war mahaytana gabaalka lileey koonfur galbeed madawiina haq ee waxa koy ku dhaloy leey yaa kuwa kalena kurtoor ma xaaraana war umaadana ngafto in ku dhaxgalay warka Hussein Usmaan Hussein agaasimihi nabad sugid madawiina koonfur galbeed taagan widay ay kamuduna lisiifadihe yaa kaale oo shariif ya abaw roobow intay ka baxeen ulmanimada ogolaaday qilaawaayaan aryaa qilaawa quud lagu heli maayo nimanka ama la dooraha war culimada Soomaaliyeed waxay cambaareeyeen ummadana uga digeen xeerka wasaaradda haweenku soo diyaarisay aniguna xeerkaas aniguna culimo ahayn baan ka carooday anigu xeerkaas waxaan ba ku nacay markii la yiri 18 sano ayaa lagu qaan gaara yaa cidiinu haday 18 ku qaan gaarto unku 15 aan ku qaan gaarnaa walanu xeerkaas waxaan ku nacay waxa yiraahdii xaaskaaga hadii muran idin dhex galo
waxaad ka doontaa waa kufs muqaalife giilan weelan fadaayan war cabdi ilay nimanyan waxaa la yidhahday xabsiga isagoo ka fakan rabaa la arkay uga faka waaya dhilqaa eber uga dhigtay war wuxuu yidhi dad waalan baa layla xiray war isagaa dadka hore u waala cabdi ilay war sacuudigu way qirteen dilka wariyihii jamaal khashuuqi wariyihii carbeed maalintuu cadowga soo aaday cadcad bay u goosteen hilbaha wiilashii cunay war saas maana waxay dhaheen qad maata war dawladdu markii wariyada dila way cambaaray jirtay hadda waata sacuudiga taageertay mar kale uga cambaaray mees amlena war dad waaweyn baa tihiine cambaaro cadow ma celisay naga hortaga maadaa diidi kala cambaarayta wariyaha wariyayaasha in la qasho waa sharciga tiri dawlad war adeer somalilan haddaan waxaan sheegsan iga tag abaare tage